bishii la soo dhaafay qiimaha lagu kala iibsado dahabka ayaa gaadhay heerkii ugu sarreeyay 30 garaam oo dahab ah ayaana kor u dhaafay $2,000 Mareykanka ah oo u dhiganta 575 pound maadaama qiimaha ay sare u kiciyeen dadka ka ganacsada dahabka waxa soo baxaya su'aalo la iska weydiinayo inta uu la egyahay dahabka laga heli karo caalamka iyo goorta laga yaabo inuu gabi ahaanba dhamaado haddaba kayd dahab intee la eg ayaa dunida ku hartay mowduucan ayaan rabnaa inaan barnaamijkeena xogdoon ku falaqeyno maantay fadlan haddii muuqaalku uu ku soo gaaro waxaan kaa codsanayaa inaad like dhahdid inaad subscribe dhahdid oo aad channelkeena ka mid noqotid asxaabta ku xiranna ayadana dhiirigelin ayay noo tahay ku soo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan waxaa hubaal ah in qof kasta uu doonayo dahab dhaqaale badanna laga sii sameeyo marka laga sii ganacsado laakiin waxaa iyana xaqiiq ah oo hareer socota in kheyraadkan uu leeyahay meel uu ku dhammaado lana gaari doono mar aan dunida oo dhan lagu arki doonin khuburadu waxay ka hadlayaan mowduuc ku saabsan heerka ugu sarreeya ee dahabka oo ah markii aan dunida ka qodno dahabkii ugu badnaa 1 sano gudahood qaarkood waxay aaminsan yihiin in heerkaas horeyba loo gaaray wax soo saarka dahabka la soo qoday sanadkii la soo dhaafay wuxuu ahaa 3,531 tan taasoo boqolkiiba 1 ka hooseyda kaydkii dahab ee la soo qoday sanadkaas kii ka sii horeeyay hoos u dhacaasi wuxuu ahaa kii ugu horeeyay ee la arkay tan iyo sanadkii 2008 xitaa marka la arko wax soo saarka ugu badnaa khuburadu waxa ay sheegaan in sanadaha ku sii xiga aan la arki doonin hoos u dhac saameyn badan leh taas beddelkeeda waxa suuragal ah in hoos u dhacaasi uu si tartiib ah loo arko muddo 10 sano gudahood waxaa jirta su'aal muhiim oo aan inteena badan isweydiinayno su'aashaas oo ah imise ayuu gaadhayaa kaydka dahab ee ku haray dunida guudkeeda shirkadaha macdanta qoda waxay heerka dahabka ee ku haray caalamka qiyaas ahaan ku sheegaan 2 habka koowaad waa kayd kan labaadna waa hanti kaydka waxay ku sheegaan dahab ganacsi ahaan loo soo qodanayo oo lagu kala iibsanayo qiimaha maanta taagan kan labaad waxay ku sheegaan hanti oo ah dahab ganacsi ahaan suuqa loo soo gelin doono marka lagu sameeyo baaritaan ama qiimaha hadda jira mid ka sarreeya lagu kala iibsan doono sida lagu sheegay daraasad ay samaysay shirkad laga leeyahay Mareykanka dahabka kaydka ah ee hadda dunida ku aasan qiyaastiisu waa 50,000 oo tan horey waxaa loo soo qoday ku dhawaad 190,000 oo tan oo dahab ah inkastoo tirooyinkaas qaar ay kala duwan yihiin qiyaastooda haddii halkaas laga sii tixraaco waxaa la aaminsan yahay in dhulka laga heli karo kaliya 20% oo ka mid ah kaydkaas oo aan weli la qodan laakiin bartilmaameedkaas mar walba wuu isbedeli karaa tiknoolajiyadda cusub ayaa suuragelin karta in dahabkaas kaydka ah qaarkiis la soo saaro oo durba laga dhigo mid ganacsi geli kara sidoo kale waxaa jirta su'aal kale oo muhiim ah oo aan dhammaanteen isweydiinayno su'aashaas oo ah meelaha ay ku jiraan kheyraadka ugu badan ee dahabka caalamka goobta ugu weyn ee kheyraadka dahabka uu ku jiro inta la ogyahay taariikhda soo jireenka ah waa godka Witwatersrand oo ku yaala waddanka Koonfur Afrika Witwatersrand waxaa laga heli karaa ilaa 30% oo ka mid ah dhammaan dahabkii dunida horey looga qoday meelaha kale ee dahabka ugu badan caalamka uu ku jiro waxaa ka mid ah god aad u qoto dheer oo ku yaala isla waddanka Koonfur Afrika kaasoo lagu magacaabay Mbanonga godadka la kala yiraahdo Suberbid iyo New Monty oo ku yaala waddanka Australia ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha uu ku kaysan yahay dahabka caalamka Gorisberg oo ay leedahay Indonesia ayaa ka mid ah sidoo kale godad ku yaala gobolka Nevada ee dalka Mareykanka ayaa ka mid ah goobaha aan la taaban ee uu ku kaysan yahay dahabka ugu badan caalamka Shiinaha ayaa hadda ah waddanka dahabka ugu badan ka qoda caalamka halka Canada Ruushka iyo Peru ay yihiin soo saarayaasha dahabka ee ugu waaweyn dunida xilligan oo ay aad dif u tahay in la helo godad cusub oo dahab ah waxaa lagu tiirsan yahay godadka dahabka laga soo qodi jiray 10 sano ee la soo dhaafay sidoo kale waxaa jira goobo aan la filayn in dahab laga soo saari karo laakiin dahab uu ku jiro dahabku ku kaysan dhulka waa mid aad u qiimo badan laakiin dhulka oo kaliya ma ahan meelaha dabiiciga ah ee dahabka faraha badan uu ku jiro waxaa la sheegaa in xitaa uu dayaxa ku jiro dahabku hase yeeshee qiimaha oo ku kacaya in dahabka laga soo qodo dayaxa
dhulka loo soo safriyo ayaa aad uga badan qiimaha ka soo bixi kara dahabkaas dayaxa ku jira. ugu dambeyn waxaa jira wadamo lagu ciseeyo inay haystaan kaydka ugu badan ee dahabka diyaarsan dunida guudkeeda. haddaba waxaan isla eegi doonaa 10 dal ee haysta kaydka ugu badan ee dahabka diyaarsan. nambarka koowaadi waa Mareykanka, wuxuu haystaa kayd dahaba oo dhan 8,133.5 tan. nambarka labaad waa Jarmalka, wuxuu haystaa kayd dahaba oo dhan 3,363.6 tan. nambarka saddexaad waa Talyaaniga, wuxuu haystaa kayd dahaba oo lagu sheegay 2,451.8 tan. nambarka afraad waa Faransiiska, nambarka shanaad waa Ruushka, nambarka lixaad waa Shiinaha, nambarka toddobaad waa Switzerland, nambarka sideedaad waa Japan, nambarka sagaalaad waa Hindiya, nambarka tobnaad ee ugu dambeeyana waa Netherland. wuxuu haystaa kayd dahaba oo lagu sheegay 612.5 tan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii aad ka heshay muuqaalkan inaad like dhahdid, sidoo kale inaad channelka subscribe dhahdid oo aad nagu soo biirtid, ayaduna dhiirigelin ayay noo tahay. mahadsanid.